call again, Hotel Golf. Report again, Hargeysa, over. Say again? Heads up cooperation, confirm? diyaaradii Soomaaliyeed oo sidee rakaabkii dhamaa 120 qof diyaaradaasi oo ku jirtay duulimaadkeedii 404 diyaaradaasi oo ahayd Boeing 77 oo ka tirsan shirkadda Somali Airlines diyaaradaasi dhawaan afduubeen niman argagixiso ah oo ka kooban 5 diyaaradaasi oo ku sii jeeday Jidda waxa ay sidii dadweyne isugu jira Soomaali daawadayaal waxaa farxad inoo ah inay maanta soo degtay diyaaradii rakaabka ahayd ee nooceedu ahaa Boeing 707 ee shirkadda Somali Airlines kuna jirtay duulimaadkeedii 414 ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho diyaaradaas oo ay afduubeen niman argagixiso ah sabtidii la soo dhaafay waxa ay khasab ku fariisiyeen ayagoo ka jeediyay jihada ay ku socotay diyaaradaas oo ahayd Jidda inay ku weecato degtana magaaladaasi Addis Ababa diyaaradaasi waxa ay sitay rakaab dhan 120 oo isugu jiray rakaabkii ka shaqaynayay iyo rakaabkii la socday diyaaradaasi waxa maanta nasiib wanaag ah inay saacadatan oo saacadu ay ku taagan tahay 5 la ay ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho waxa shacabkaas aad maqlaysaan iyo sida idin muuqataba hortiina taagan diyaaradii ay soo dhaweeyeen madaxdii dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyagoo farxad iyo reereyn ay ka muuqato taasoo ah wax lagu farxo cadowguna uu ka naxo maanta iyagoo bad qaba haddii ay soo degtay diyaaradii Somali Airlines oo dhawaan ay afduubeen nimanka argagixisada ah taasoo ah wax dhibaato u keenaysa reeleen la soo dhaweeyay ummadii Soomaaliyeed madaxda qaranka oo dhamaantoodba ay shucuurtoodu ka muuqato si farxad leh taasoo ah wax lagu farxo cadowga Soomaaliya labanta koonfureed iyo labanta waqooyi iyo Talyaani Mareykan maanta waa inoo farxad iyo reereen haddii aan inagoo faraxsan diyaaradii oo bad qabta iyo rakaabkeediiba ay ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho si wanaag noo ah maanta inaad u jeedaan rakaabkii Soomaaliyeed ee lagu afduubay diyaaradii Boeing 707 oo sidii rakaabkii Soomaaliyeed oo u jeedaan qofkii ugu horeeyay in si farxad iyo reereen lagu soo dhaweeyay iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay in ummadaas Soomaaliyeed Ilaahay ka soo samtabixiyay gacanta gumaysiga iyo argagaxsadii foosha xumeed ee dhawaantaan afduubtay ay maanta ka soo degeen iyagoo bad qaba dhamaantoodba daawadayaal waa wax lagu farxaa ummadeennii oo nabad qabta oo ka soo degay rakaabkii Boeing 707 iyagoo bad qaba oo caafimaad qaba oo maanta aad inoogu jeedaan inay ka soo degeen diyaaradii Boeing 707 oo ku sii jeeday Jidda sabtidii dhaweedna ay afduubeen nimankii argagixisada ahaa taasoo ah wax dhaawac u geysanaysa qawaaniinta u taala rakaabka sida diyaaradaha rayidka ah haatana baliniina ku arkaa ummadaasi siday farxadda iyo reereynta ugu noqoto iyagoo gadaal ugu soo noqday dalkoodii hooyo iyagoo Ilaahay ka soo bixiyay gacantii argagixisada iyo gacantii cadowgaba socdaa soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyay oo ayagoo bad qaba ka soo degay maanta gegida caalamiga ah ee magaalada Muqdisho waana u jeedaan ayagoo farxad iyo reereyn ay ka muuqato dadweynihii saarnaa iyo rakaabkii saarnaa diyaaradaasi oo ku soo noqday dalkoodii waliina waxa socda madaxdii oo gacan qaadaysa rakaabkaasi ku soo laabtay dalkooda kana soo baxay gacantii argagixisada qiimaha iyo qadarinta loo wali waxa socdaa soo dhaweyntii lagu baray isagoo gacan qaadaya dadkii rakaabka ahaa Ilaahay ka soo samtabixiyay gacantii gumaysiga dadkaasi oo ah dad Ilaahay ka badbaadiyay gacantii argagixisada Soomaaliya maanta ka duushay magaalada Muqdisho oo ku sii jeeday arigaasi sida ah waxa haatan indhihi loogu jeedaan rakaabkii saarnaa diyaaradaasi oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre indhihiina waad ku
aragtaan ayagoo ummadaasi ay ka muuqato farxad iyo reynreyn ayagoo nabad ugu soo noqday ciidoodii hooye haddaba indhihiinna ayaad ku aragtaan isla markaana ah wasiirka gaashaandhigga jaalle sareeye guud maxamed cali samatar iyo madaxdii dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya oo dhammaanteedba soo dhoweynaya dadweynaha soomaaliyeed ee dib ugu soo noqday rakaabkoodii iyagoo nabad qaba oo bad qaba ayaga iyo diyaaradoodiiba haatanna fuulaya basaskii loogu diyaargaroobiyey inay halkaani ka qaadaan wax qaba oo raacay basaskii loogu talagalay laguna soo dhoweynayey in lagu badbaadiyo laguna geeyo hoygoodii iyagoo nabad qaba taasoo farxad iyo reereen oo ah dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo inta jecelba nabadda waxaadna u jeedaan dadweynihii rakaabka ahaa oo saarnaa diyaaraddaasi oo haatan koraya basaskii loogu talagalay in ay ka daadgureeyaan gegada diyaaradaha ee magaalada muqdisho daawadayaal weli waxaa socda soo dhoweyntii lagu soo dhoweynayey rakaabkaasi oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad jaalle sareeye guud maxamed cali samatar iyo madaxdii dalka oo dhan socda soo dhoweyntii la gacan qaadayey rakaabkii saarnaa diyaaradda boying kuna jirtay sudcaalkeedii ilaahayna maanta iyadoo nabad ah oo ay fiyo qabaan dadweynihii saarnaa rakaabkaasi iyo diyaaraddiiba ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada muqdisho dadkaas oo farxad iyo reyreen ku gacan qaadaya madaxweynahooda jaalle maxamed siyaad barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya isla markaana ah wasiirka gaashaandhigga sidaad u jeedaan waxaa weli soo degaya oo ka soo degaya diyaaraddii rakaabkii la socday diyaaraddaasi daawadayaal waxaa weli aad u jeedaan dadweynihii la socday rakaab oo maxay ku soo fiyo noqday ayagoo nabad qaba gegida diyaaradaha magaalada muqdisho uuna gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya maxay u jeedaan duuliyihii diyaaradda boying oo gacan qaadayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya xaaji dhagax iyo duuliye ku-xigeenkii diyaaradda boying cali dalays waxayna u dhaqaaqeen markaan dhinaca diyaaradda iyo kuwigii ka shaqaynayay diyaaradda boying oo gacan qaadaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya oo dhan iyagoo fiyo qaba dadweynihii rakaabka ahaa oo la socday diyaaraddii rakaabka ahayd ee shirkadda Somali Airlines Boeing 707 oo ku jirtay duulimaadkeedii 414 dadweynahaasi oo galabta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo bad qaba iyaga diyaaradoodiba waa dadweynihii dhawaantan ay afduubeen nimanka argagixisada ah iyagoo ku sii jeeda duulimaadkooda ahaa Berbera Jidda duulimaadkii dadweynahaasi oo Ilaahay ka soo samata bixiyay gacantii argagixisnimada maantana ku soo noqtay iyagoo bad qaba dalkoodii hooyo wajiyadoodana ay ka muuqato farxad iyo reereyn iyagoo jooga maanta ciidoodii hooyo taasoo ah farxad ummadda Soomaaliyeed dhamaanteedba ay u soo hooyatay weli waxaan ku jirnaa duulimaadkii dadweynihii ka soo degay galabtay oo ka soo degay diyaaradii Boeing 707 oo saarnaa diyaaradii Somali Airlines dhawaana ay afdubeen nimanka argagixisada ah waxaana hortiina fadhiya rakaabkii oo fiyo qaba iyagoo farxad iyo reereyn ay wajidooda ka muuqato dadweynihii Soomaaliyeed oo dhamaana ay gacmo furan iyo si reereyn iyo farxad ku jirto u soo dhaweeyay weli waxaad u jeedaan rakaabkii oo fadhiya oo dhawaan ka soo degay qayb kamid ah diyaaradii Boeing 707 dadweynahaasi oo farxad iyo reereyn ay ka muuqato ayagoo bad qaba caafimaad qaba ciidoodii hooyo ku soo noqday galabtana rakaabkaas oo kamid ahaayeen rakaab ajaanib Soomaali rakaabkaasi waxa kamid ahaa oo kale rakaab Yamanta waqooyi iyo Yamanta koonfureed Talyaani Mareykan iyo Soomaaliba